amba galaaftay bandhigiisa garoomada halka aabihii Ronaldinho uu ku geeriyooday barkad dabaasha gurigooda cusub waxaana waqtigaasi halyeegii hore ee Barcelona da'diisa ay ahayd 8 jir walaalkii Roberto waxa uu qaabilsan yahay xilligan maamulka howlaha Calcio halka walaashii Daisy ay la taliye uga tahay dhinaca warbaahinta tareenka kubadda cagta Ronaldinho waxa uu ka soo bilowday daayirada kooxda Grêmio ee dalkaasi Brazil waxa markii ugu horeysay uu ciyaaray ahayd sanadkii 1998 waxa muddadaasi u dhaliyay 23 gool 48 kulan uu ciyaaray tallaabadaasi waxay dhadaraandirisay ragga jihaaska u qaabilsan xulka qaranka Brazil oo rabay in xulka ay ku soo daraan ficil ahaan waxay heleen wixii ay dooneen Ronaldinho ayaa lagu soo daray xulka daayirada Brazil sanadkii 1999 waxa uu xilligaasi jiray da'da 19 jirka waxaana ciyaaryahanada xulkiisa kaga qayb ahaa kuwii ka qayb galay koobkii Confederation Cup-ka oo markaasi la guddoonsiiyay Dinho kubadda dahabka oo ka dhignayd xidigii ugu fiicnaa tartanka iyo abaalmarinta kabta dahabka oo ku mutay dhalinta goolashii ugu badnaa tartanka naadiyada waaweyn ee Yurub ayaa ku dagaalay sidii ay u heli lahaayeen adeega ubaxa cusub ee u soo baxay Brazil balse waxa afduubatay naadiga Paris Saint-Germain sanadkii 2001 markaasi waxay bixisay lacag madaxiisa dul saarnayd oo gaaraysay 5 milyan oo euro iyadoo halkaasi uu ka bilaabay ka ciyaaristiisa Yurub Ronaldinho waxa uu PSG ku biiray iyadoo si weyn u soo dhaweeyeen dhammaan taageerayaasha kooxda iyo cushaaqda naadiga ka dhisan caasimadda France ee Paris sanadkii 2002 Dinho waxa uu xulkiisa Brazil kala qayb galay koobkii dunida ee Korea iyo Japan lagu qabtay Ronaldinho waxa uu dhaliyay 2 gool 5 kulan uu ciyaaray mid kamid ah waa goolkii guusha ee ciyaartii Brazil ay kaga hortagaysa England waana goolkii caanka ahaa ee laadka xorta ee meel dheer uu ka soo tuuray Dinho kaasoo sabab u ahaa in xulka saddexda libaax ay ka haraan koobkii dunida 2002 kadib Brazil waxay finalka ugu tageen Jarmalka oo aakhirkii ay ku dubteen 2-1 markaas oo ay kor u qaadeen koobkii kubadda cagta loogu jecel yahay ee Mondiyaalkii dunida markoodii shanaad sanadkii 2003 Ronaldinho waxa uu ku biiray naadiga kubadda cagta FC Barcelona ee dalkaasi Spain iyadoo si cajiib ah u soo dhaweeyeen cushaaqda kubadda cagta Catalaanka waxa uu helay nambarka 10aad kaas oo aan la siinin ilaa iyo xidigaha waaweyn ee kooxda soo mara mooyaane waxaana xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay oo ku bilaabay gool taariikhi ah laakiin waxa uu la kulmay dhaawac culus kaas oo garoomada ka fogeeyay ilaa iyo kala barka xilli ciyaareedka balse waa uu soo laabtay isagoo kooxdiisa Barca ku hogaamiya kaalinta labaad ka gadaal Valencia waxa uu ka bedelay wax kasta isagoo kooxda ku soo celiyay xiliyadii Barcelona ay ahayd Barkadii la yaqiinay waxa uu noqday hogaamiye lagu daydo xitaa jamaahiirta cadawga isku yihiin ee kooxda Real Madrid waxa uu ka yeelay mid ay u sacabtumaan isla markaana ay ku heesaan magaca Ronaldinho kadib mid kamid ah goolashiisa cajiibka ahaa dhacdo ay adag tahay in mar kale dunida ay ku soo laabato waxay ku ziyaaday caanimadiisa Ronaldinho bandhigyadiisa cajiibka gambiskiisa quruxda badan oo aadan dareemi karin halka uu kubadda geynayo waxaana sidaasi ku noqday mid kamid ah laacibiintii ugu fiicnaa isla markaana loogu jecel yahay kubadda cagta dunida isagoo xidigaha kala dheera inay wada jecel yihiin cadow iyo saaxiib sanadkii 2005 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta sida weyn loogu jecel yahay ee Ballon d'Or iyo abaalmarinta ninka ugu fiican dunida ay bixiso sanad kasta FIFA 2004-2005 sidoo kale waxaa la siiyay abaalmarinta ninka ugu fiican Barcelona ebid taariikhda soo mara Barcelona waxa uu ciyaaray 200 oo kulan waxa uu dhaliyay 94 gool isagoo caawiyay 69 gool waxa uu kula guuleystay 5 koob oo ugu muhiimsanaa koobkii dhagaweynaha UEFA Champions League 2006 markaa ay ka qaadeen Gunners Arsenal xulka Brazil waxa uu hogaamiyay tartankii koobkii dunida 2006 isagoo si weyn loogu saadaalinayo wiilasha Samba kuwaas oo ay ku jireen xidigo dahab ah laakiin arinta ayaa ku dhamaatay si aan loo filaynin oo niyajaba kadib markii wiilasha diiqada France ay dhamaan ka yaabsadeen dadkii dunida ku noolaa oo Brazil tartanka uga saaray wareegga farnamaadka 2008 Ronaldinho waxa uu ka tagay qalcadda Camp Nou kuna biiray kooxda ku ciyaarta garoonka San Siro ee AC Milan oo ah mid kamid ah kuwa ugu waaweyn naadiyada Yurub
lacaga dhan 24 milyan ayuu uga biiray halkaasi, laakiin nambarka 10aad waxa uu rukunaa saaxiibkiisa Seedorf, sidaas daraadeed waxa uu doortay nambarka 8aad. waxaa Ronaldinho xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay 2008-2009 ku dhamaystay kaliya 10 gool 32 kulan oo ciyaaray, iyadoo xilli ciyaareedkaasi ahaa kii ugu horeeyay isagoo ah mid rajabeel ah. hoos u dhac xoogan oo jir ahaaneed ayaa muuqday iyo asluub nololeed oo isbaabi'in ah sababa ku aadan xafladaha habeenkii, taasoo ah mid aan ku habboonayn ciyaaryahan sidiisa ah, iyadoona arrintu ay keentay inaan lagu soo darin xulka qaranka Brazil ee matalay koobkii dunida 2010 kaasoo lagu qabtay markii ugu horeysay qaaradda madow ee Afrika, gaar ahaan Koonfur Afrika. sanadkii 2010 Ronaldinho mar kale waxa uu ku laabtay dalkiisa isagoo ku biiray naadiga Flamengo. xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay waa uu fiicnaa, laakiin arrinka ayaa mar kale xumaaday waxaana uu bilaabay inuu gogoyo tababarka. sidoo kale waxa aad u liitay bandhig